subscribe, like, share, comment. كمبلال كدايسي. السلام عليكم أرجعنا فصل كسديدات وصلوا هذا بوجي English grade 8 فصل كسديدات قيبتني ورا وحنوم رئيسي بوجا لبي لباتنات إسلا بوجا لبي لباتنات page 22 أيام كم لابنينا نمبر D language practice وحلو practice كرينا يا اللقطة using وحل استعمالها in spite of وحل هذا أيضا أولو أبيلايو ama ayada oo loo eegayo despite of ayaa ka soo horjeedo ayada aan loo eegaynin okay and write qor in spite of ayaad qoraysaa dabcan buugga wax laga yaabaa kan khalad kaga jira example tusaale lagu siiyey there were waxaa jiray insufficient desks miisas aanan ku filneen at the examination center xarunta imtixaanaadka but laakiin all the candidates dhammaan musharaxiinta ama ardada sat way fariisteen comfortable si raaxo leh marka waa lagaga shaqeeyey waxaa la soo qaatay all the candidates dhammaan musharaxiintu sat way fariisteen comfortable si raaxo leh in spite of ayada oo loo eegayo of the insufficient desks miisaska aan ku filneen at the examination center xarunta imtixaanaadka okay ardayda si raaxo leh ku fariisteen ayadoo ay jirtay kuraas la'aan ay jirtay sida ayaa laga wadaa okay exercise 1 leeliska koobaad change the following sentence jumladahan bedel using adigoo isticmaalayo in spite of adigoo isticmaalayo example tusaale ahaan all the candidates dhammaan ardadu arrived way yimaadeen at the examination Danbuur center xarunta examinationka Danbuur la yiraahdo in time xilligeedii ay ku yimideen in spite of ayada oo la ogyahay ama ayadoo loo eegayo the morning Danbuur xilliga subax ee Danbuur okay in spite of welkan dabcan sidan weeyaan in spite of the morning downpour ayadoo loo eegayo subaxa Danbuur all the candidates dhammaan musharaxiintu arrived way yimaadeen at the examination center xarunta imtixaanka in time xilligeeda marka kuwan aniga kaaga wada shaqeeyay there were waxaa jiray some disturbances xogaa dhibaatooyin ah during inta lagu guda jiray the examination imtixaanka but the candidates laakiin ardadu did well si fiican ayay sameeyeen marka aniga kaaga shaqeeyay in spite of some disturbances ayadoo la ogyahay ama la eegayo inay jiraan xogaa dhibaato ah during inta lagu guda jiray the examination imtixaanka the candidates musharaxiintu ama ardadu did well si fiican ayay sameeyeen mid kale although Ahmed was sick sidan ayaa lagu qoray inkastoo Ahmed uu xanuunsanaa he did the examination imtixaankii uu sameeyay uu galay marka waxaan dhahay Ahmed did the examination Ahmed imtixaanka uu sameeyay uu galay in spite of he was sick ayadoo la ogyahay ama loo eegayo inuu xanuunsanaa laakiin imtixaanka uu galay there was waxaa jiray examination leakage laaluush oo xagga imtixaanka ah but we did not have laakiin ma aanan lahayn any malpractice si xun ardada uma practice gareynin at our center xarunteen macnaa lama qishin laakiin leakage wuu jirayo imtixaankii hore ayaa loo soo arkay oo dadkay soo arkeen sidaan ayaan ugu shaqeeyey we did not have malpractice at our center ma aanan lahayn si xun looma dhaqmin oo ardada qish ma sameynin xarunteena in spite of ayada oo loo eegayo there was examination leakage inuu jiray imtixaanka in la soo arkay la soo helay
ومد كلا the candidates أرضو were punctual وحقاين هو وقت إلالي أو وقت جودي كويمد but the examination started late لكن امتحانكي حلدم أيوب بلاودي سيدانا يعني وشغي the candidates were punctual أرضو وحقاين هو حل جودي كويمد on time in spite of أيضا الأوبيهاي ولو إيجايو the examination started late امتحانك إنه حلدم بلاودي we revised وان مراجعيني أو ونكوعلني very hard سيئاد وأذك but we did not pass لكن ما أنا باسين the examination امتحانك سيدانا يعني وشقي in spite of we revised إن كستو أما أيضا لو إيغايو إنا مراجعة سميني very hard سيئاد hard وآرا كمان هكا we did not pass the examination ما أنا نقول امتحانك exercise 2 page 23 exercise كاللبات بوغا لباتين سدحاد أيوكوية لا complete لما يسو أما دميستر the sentence جملة ده beginning أديو كبلا بيسيد in spite of أديو كبلا بيسيد هل كان بوغا ويكخلدن تاي طبعا هو سيدان كي مركا هل كان ميل بران أيوكو جري أنا مركا سيدان أيانو وشغي in spite of candidate found some numbers quite difficult أيضا لو إيجايو أردادو إني هلان تيرو أدك they all passed هذا نوي good pain in spite of Amina did not complete أيضا لو إيجايو Amina إني سان رميسترين ها examination امتحانك she got good result نتيجة ونكسن أي هالشيء مرك أنت كلانية أيا كونا مستري هو دري in spite of this coach let the examination start إن كستو كورميرياشو أما جودي امتحانكو let أي فصحين the examination start امتحانك إنه بالله it did not start ما باللابن on time حلقة يدكم مو باللابن in spite of أيضا لو إيجايو we finished the math paper inaan dhammaynay imtixaankii warqadii xisaabta yearly enough si nagu filan we did not pass it ma aanan gudbin in spite of ayadoo loo eegayo the candidates were calm in ardadu ay deganaayeen oo aysan buuq lahayn the invigilator was angry and ilaaliyaha imtixaanku wuu xanaaqay ayadoo ardada ay deganaayeen haddana ilaaliyihii wuu xanaaqay exercise kan kale write or 5 of your own sentence 5 jumladood adiga aan leedahay maskaxdaada aad ka keensatay by using adigoo isticmaalaysid in spite of marka xariijimaa buu ku yaalo ayaad ku qoraysaa 5 jumlad adigoo isticmaalaysid ereyadaada isla meeshan waxaan ka bilaabaynaa grammar ayaan bilaabaynaa the ing form as subject marmarka qaar waxaa jiro in magac ama ing wato ama verb oo ing wato oo haddana noqonayo subject wuxuuna noqdaa magac subject noqonaya we sometimes use mararka qaar waxaan isticmaalnaa verbs with ing falal ing leh as subjectiga ayaan ka dhiganaa for example tusaale ahaan swimming dabaasha is an exciting hobby waa balwad xiiso leh so marka halkan waa noun gerund ayaa la yiraahdaa English ahaan grammar marka laga hadlayo so halkan marka swim oo swim oo dabaal ahayd swimming laga dhigay waa dabaasha waa marka this is a subject marka subject waa istan waa verb to be inta ka dambeysana object swimming is an exciting hobby and dabaasha waa balwad xiiso leh cooking karintu is a fun activity waa hawl faneed okay and exercise kan exercise 1 page 25 book 25 ku yaala fill buuxi in the gaps meelaha banaan pillow ee hoose using adigoo isticmaalaysid
appropriate form habka ku habboon of the verbs ee falalka in practice ee barkada ku jirto marka ereyada ku falalka bracketka ku jiro ayaad ku buuxinaysaa halkan marka halkan oo dhan way banaaneed waa idin buuxiyay shot ayaa ku jirta dabcan saad buugaa ka arki doontid shouting at elders ku buuqidda lagu buuqo odayaasha ama dadka waaweyn is very bad manner waa hab aad u xun marka iska ilaali waalidkaaga inaad ku buuqdid ama dadka kaa weyn inaad ku buuqdid iska ilaali lying been sheegiddu is a very bad habit waa dabeecad aad u xun eating cuniddu is not allowed lama ogolo in the library maktabadda eating aan kugu daray flying duuliddu is the fastest model waa naqshada ugu dheereyso of travel ee safarka today maanta driving baabuur wadidda makes me very tired waxay iga dhigtaa mid aad baan u daalaa markaan baabuurka wado reading akhrinta is her favorite hobby waa balwadeeda ay jeceshahay resting nasashadu can be waxay noqon kartaa very refreshing mid aad refresh ah oo qofku uu dareemayo inuu nastay painting rejainto shows waxay ku tusinaysaa that someone is interested in qof uu xiiseynayo crying oohinta is common with waxay caan ku tahay many babies caruur badan painting rejainto is something I enjoy waa wax aan ku raaxaysto page 26 boga 26 questions waa su'aalo dabcan page 26 weeye read akhri these sentences jumladahan the question tag oo aan horey usoo aragnay are in red colorka cas waaye oo buugaagaad fiirinaysaa tusaale her father aabaheed is a mechanic waa farsamo yaqaan mechanic ah oo baabuurta sameeyo halkan marka waxaa leeyahay isn't he tenniska la fiirinayaa bibtobiga markaas taagan tenniska taagan soo horey waxaa u barateen haddii statement jumladu ay tahay statement question tagga wuxuu noqonayaa negative uu noqonayaa haddii jumladu ay tahay negative-na question tagga wuxuu noqonayaa positive uu noqonayaa her father aabaheed is a mechanic isn't he ayaa dhahaysaa waa tusaale lagu siiyey they were not coming to stay uma imaanaynin ayaga inay joogaan soo marka weertan ayaa lasoo qaatay were they miyey marka fiiri marka not lama keenayo markan soo marka hore halkan ayaa not ku jirtay exercise kaanad ka shaqaynaysaa marka complete dhammaystir the flowing sentences jumladaha soo socdo using adigoo isticmaalaysid suitable question tags ku habboon the visitors booqdayaasha ama dalxiisayaashu have not yet waaye t waaye meeshan yet arrived weli ma iman so waxaa leedahay have they miyay yimideen you heard him cry out waxaad maqashay isagoo oynaya so marka waa simple past tense didn't you ayaa leedahay miyaadan maqan we should wash waa inaan dhaqnaa our hands gacmaheena before we eat inta aanan cunin dabcan shubtan ayaan soo qaadanaynaa shouldn't we miyaysan ahayn sidaa they are weeding waxay abuurayaan the garden jardiinka soo marka aartanaad soo qaadanaysaa aren't they miyaysan abuurayn you did not eat ma cunin adiga the meat hilibka so did maadaamay timid did you ayaa la leeyahay she has a bad temper dabeecad xun ayay leedahay waxaa leedahay markaas haastan soo qaadanayna soo negative ka dhigayna hasn't she miyaysan ahayn she helped way caawisay her aunt eedadeed didn't she ayaa leedahay miyaysan caawin she did not arrive late iyado ma aysan iman xilli dambe did she ayaa la leeyahay miyay timid that was a bad joke taasi waxay ahayd kaftan xun wasn't it miyaysan ahayn you will not repeat kuma celin doonta the mistake khaladka sidaan ayaa leedahay marka will you ku celin doontaa okay present progressive questions waxaa laga hadlaya marka
present continuous tense aad taqaanaan soo marka present progressive haddii lagu yidhaahdo waa present continuous tense marka ereyga progressive waa continuous su-aalaha marka halkan yaallo boggana waa bogga 21 present continuous tense maxaa loo isticmaalaa waxaan u isticmaalnaa the present progressive ama present continuous to talk about inaan ka hadalno actions falal that are going on kuwaas oo socdo during inta lagu guda jiro the time of speaking xilliga hadalka marka xilligaas aad hadlaysid falalka aad isticmaalaysid ayaa la yidhahdaa present progressive example what are you writing maxaa qoraysaa hadda I'm writing waxaan qorayaa a letter warqad ayaan qorayaa to my aunt eedaday okay are they reading iyagu miyay akhrinayaan the books buugaagta marka tenniskan waxaa lagu garanayaa ing-da iyo falcaawiyaha la socda oo r iyo I iyo is iyo he iyo she sidaad halkan ugu jeedid I haddaad aragtid waxaad siinaysaa haddii they aragtid waxaad siinaysaa are soo marka jawaabtu waa tana yes ha they are reading the books buugaagta akhrinayaan exercise lagaaga dhigay ladies isla page 27 ku yaallo okay write down qor the questions that give su-aalaha ku siinayo the answers below jawaabaha hoose marka way kuu qornayeen su-aashii ayaan ku dhigay she is listening to the news iyadoo waxay dhegaysanaysaa warka so waxaan dhahay what's she listening to maxay dhegaysanaysaa okay halkan waxaa lagu dhigay yes she is writing the letter now iyadoo hadda ayay warqadda qoraysaa marka su-aashii waa tana she writing miyay qoraysaa the letter warqadda now hadda okay no the farmers are not picking tea maya beeralaydu ma soo bixinayaan shaaha so halkan su-aashii waa tana are the farmers miyay beeralaydu picking tea shaaha soo saarayaan soo bixinayaan okay yes my cousin waaye jiidan halkan waan ka tiraynaa is washing wuxuu dhaqayaa the dish saxunta halkan jiidan way baxaysaa cousin jiidan way baxaysaa sorry so marka is your cousin adeerkaaga jiidan waa baxaysaa washing the dishes saxunta miyuu dhaqayaa is he making okay halkan waaye yes he is making isaga wuxuu sameynayaa chapati ayuu sameynayaa su-aal baan ka dhignay ista dabcan soo qaadanaysaa is he making chapati miyuu chapati sameynayaa yes they are cleaning the rug ha waxay nadiifinayaan rugga soo markaa artad soo qaadaysaa are they cleaning the rug rugga miyay nadiifinayaan yes they are making their beds ha iyagu waxay sameynayaan sariirtooda so su-aal ka dhig marka art ubaad soo qaadaysaa banaanka keenaysaa are they making their beds sariirtooda miyay diyaarsanayaan okay no Igran is not washing clothes halkan marka clothes waaye arta waa khalad halkanna way kala baxsan yihiin Igran iyo ista no Igran is not washing clothes su-aal ka dhig marka waxaa waaye is Igran washing clothes Igran dharka miyay dhaqaysaa okay no the children are not riding bicycle maya caruurtu ma fuulayaan baskil so su-aal ka dhig marka arta le soo qaada banaanka keen are the children reading waya halkan waa d baskilka miyay fuulayaan caruurtu okay ta ugu dambeyso yes the athletes are practicing in the field ciyaartooydu waxay ku practice gareynayaan goobta meesha loogu talagalay garoonka oo kale soo su-aal ka dhiga arta le banaanka usoo baxso are the athletes practicing in the field okay ciyaartooydu miyay ku practice gareynayaan halkan ama garoonka intaa ayuu nooga yahay xalqadeennan afraad intaan mid kale ka kulmayno waxaan idinkaga tegaa sida iyo nabadgelyo